dadka qubuurta ku itikaafa waa bidcada la sheegayo qolada ugu sarraysa bal waxay u badan yihiin dad aan diin lahayn maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala keliga ayaa la caabudaa cid kale oo lala caabudi karana ma lahan dadka qubuurta ku dawaafa oo u xajiya meelaha qubuurta ku taallo oo yidhaahda haddii qabri hebel intaasoo jeer lagu dawaafo waa xaj ama waa xajulmasaakiin iyo dadka u aaminsan dadka qubuurta ku jira inay wax qabtaan amay wax gooyaan amay wax tari karaan dadkaas ayuga oo waxa ay la yimideen shirki weeyaan waxayna ku tirtiyeen mushrikiinta haddaysan ficilkaa ka tegin ma ahan arrintooda bidca iyo waxaas way iskala saramartay waxay soo gelayaan qolada alla yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaan wa kanuu bicibaadati lkaafiriin way ku kufrinayaan berrito dadkan ay leeyihiin waxbay qabanayaan ama salaada la dur tegayo qubuurta laguma dul dukan karo xaggooda looma dukan karo oo lalama qaabili karo salaada laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha adilo saxiixa nabiga ka sugan xaggooda ha u dukanina hana ku dul fadhiisanina midda kale xadiis sixadiisu sugantay nabigu waxau sheegay sala allahu alayh wasalam makhluuqa ilaahay dadka ugu khayrka daran inay laba qola yihiin qolada ugu horraysa waa qolada dhisi doonta qubuurta yattakiduuna alqubuura masaajid qolada labaadna waa qolada qiyaamadu ku dhici doonta ayagoo axyaa oo nool ayana inta iimaankale waa laga sii qaadaa nafta sida adilo saxiixa caddaynayso marka dadkaa qubuurta dhisaya oo derbiyada yacni ku wareejinaya la marinayo nuuriyadda iyo dadkaa qubuurta ku dawaafaya dadkaa sardiga ka gelaya dadkaa qubuurta xiriirka noocaasa la leh haddaysan ka toobad keenin oysan ka bixin dadkaa shirkiga lagu xukumayo ay ku jiraan maxaa dadka loo gaalaysiinaya iyo maxaa xagga looga dhacaya maaye waxaa meeshan yaalla arrin aad u adag rasuulka maanta uu geeriyoonayay dhowr maalmood ka hor 5 maalmood ba riwaayadaha qaar sheegayaan waxa uu lacnaday yuhuud iyo nasaaro qubuurta ambiyadooda iyo saalixiinta ayay masaajid ka dhigteen caaisha waxay tidhi rasuulku waxau ka digayey waxa yuhuud iyo nasaaro sameeyeen waa waxa maanta ummaddeennay samaynayso waa waxa culimmadeenni ay la wada huwan yihiin oy saa ku wadaan oo ay u haystaan arrintu inay sidaa tahay oy ku leeyihin awliyadii lagu xadgudbay awliyadii xagga laga dhacay yaa ka awliyaysanay abubakar iyo cumar iyo ragga marka laga soo tago khulafada qaybaheeda kale iyo ragga jannada loogu bishaareeyey qubuurtoodii meelay ku taalla lama yaqaan say u badan tahay maxaa qubuurtooda inta loo raadiya loo dhisi waayo ama nabigu dhihi waayo waxa laga qabto ambiyada ilaahay oo hore u dhimatase qubuurtoodii maxaa loo dhisi waaye qabri in la dhiso la dul fadhiyo hadday faa'iido leedahay waxay muslimiintu yidhaahdaan sida xadiis bukhaari ku sugan caddaynayo nabi muuse waxau alla weydiistay baytulmaqdes meel u dhow in nafta looga qaado maxa u odhan waayaa la yidhi baytulmaqdes gudihiisaba waxau ka baqla ayay odhanayaan muslimiinta yani shuraaxda muxadisiinta in qabrigiisa inta la oqoonsado la dul fadhiyo sidaa darteed meel ambiyada alla ku dugan yihin lama yaqaano rasuulkeena un baa laga garanaya sala allahu alay wasalam waa haddii loo baahan yahay qabri in ilaah laga dhigto noocaa weeye midda kale adduunkan goormaa gaalnimo ugu horraysay maantii musawir la sameeyey qabrina la dhisay gaalnimada dadkii ay ku bilaabato kuwii ugu horreeyey maxay ahaayeen niman culamaa sulaxaa wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra sida bukhaari ku sugan waa 5 nin oo culamaa oo wanaagsan magacyadood oo sidii loo dul fadhiyo maantii dambe la yidhi ayaga ilaahay ah qubuurta la dhisayaa noocaa weeye ninka qabri ku dawaafay waxau diin leeya ma haysto ma jiraan waxauna beeniyey si caddaana u inkiray aayaddow alla yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin adiga keligaa baan ku caabudaynaa kaana kaalma dalbaynaa dadka qubuurta ku dawaafow rabbigiin ka cabsada dadka qubuurta odhanaya qubuurta waxbay galanow rabbigiin ka cabsada warrin asaga islaanta u qabay la dumaalay oo asaga abaar cunay maxau kuu qaban karaa ninka kan adiga odhanaya awliyaday soo kaco wax qabee maxau u dhinto isu celi waaye oo adduunka u joogi leeyahay nin geerida jecel ma jireen ma noolaado haye nin soomaalidu waxay tidhahdaa nin dhisa kobihiisa ka ron wau garanayaa mahmahyada noocaasa waxay dhahaan mahmahyadaas waa jirtaa kobihiisaa dhaama maxaa yeele kobihi baa jooga maxaad ka doontay dib wax weydiisanaysaa haye maxaad ka doontay midda kale haddaad ay run tahay nimanka la sheegayo oo culimmada oo dhintay ayagu way dhinteen inay sidaa sheegaysaan wax u qaban karaan 4 nin baa xamar ku dugan baa nala ku yidhi oo halaqa iyo badda iyo cudurka ka ilaalisa xabadda jirdhi iyo ay mooryaan ka wado ma naga qabtaan
هذا بدأ نجاح يا نيجو بدو أنت يدي نك علي حبدا ونجاح علين كراه هذا رجع يسان هي ورينا هيك حشارة مجدك لو قبورت ما لا قال كنت على كذا بيولي وكله وقت اللي هذا وبقول أولياء إلك يدرك أيوة كراهيا وحياله وين باجرة نقطة وكفي ذي ما لها كار أما مد مرككوا يلا براكيب تبرها ما يصدق قدامك نقطة كتوسية هذا نقطة كتوسية كرما نجت توسية ده كان غير ما بلاي نقول عمل ما يقول موتك ثاني أرجع سردك سوقها وحقر ثاني ما كان بيه وتجا أو ذاتك وحن شيء إلهي نكحي شورا ذاتك أموات أود أنت أود آية الله أن حريص إلهنا هدي والدك وكنت والدك وقت إلهي كنت صدق أبحي أما وقت يبري بالمنة ويالي وحكى الله ودن زوجية أولياء كان يحقق إلهي أولياء والي وننك إن كان الدين تواب بيني أولياء على رجع يضمر وما قيسنته أحد كي لقى الله بس المامود وول إلهي الذين آمنوا وكانوا يتقون قفك إيمان غرنة إيا حبسك لقى لي أولي حاران إيا حقدر الله إيمان أولاك كنت لالي أحد كاس وول إلهي متى كده دمر كانوا شيئا يا أرين تاسي ها أوغادين دمر كو أدبا ويدين خيانة هوين أولياء ومجران ما أولياء اللي يدكو قد يقول نمك أولياء الله قد يقول نمك وين السرطان اسكي علي نمك ناقا أولياء نقول ما سمعيستا